ciidamadana amar cad waxay ku qabaan inaysan ka leexleexa karin annagana aan ku amarnay ayagana waajibaadkaasi naga qaateen in maanta wixii ka dambeeya qori sharci darrana aan lagu arki karin magaalada beledweyne qof wadato kulankan oo ah mid xasaasiya isla markaana diiradda lagu saarayay amniga guud ee magaalada beledweyne iyo kan gobolka hiiraan ayaa ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka uu ku leeyahay magaalada beledweyne iyadoo uu shir gudoominayay gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed waxaa kulankan qayb ka ahaa saraakiil uu ka mid yahay taliyaha guutada shanaad qaybta 27 korneyl baakaay saraakiil kale oo ciidan gudoomiyaha maaliyadda siyaasadda gobolka hiiraan xasan carabay iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka saraakiisha ciidan iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda maamulka gobolka ayaa isla gartay in gacan bira lagu qabto amniga magaalada beledweyne oo dhowrkii cisho ugu dambeeyay u muuqanayay mid faraha ka sii baxaya maadaama magaalada ay ka dhacayeen falal lidii ku ah badqabka dadka ku dhaqan magaalada kulanka markuu soo idlaaday waxyaabihii ka soo baxay waxaa warbaahinta la wadaagay gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed oo amar ku bixiyay in maanta wixii ka dambeeya magaalada beledweyne aan lagu dhex wadan karin hubka noocyadiisa kala duwan oo ugu horeeya qoriga loo yaqaano AK47 waxa uu sheegay in ciidamo kala duwan oo sugaya amniga magaalada lagu daadin doono magaalada beledweyne isla markaana ay xaqiijin doonaan guud ahaan amnigii badqabka shacabka ku dhaqan magaalada oo dhowrkii cisho ugu dambeeyay ama bilooyinkii ugu dambeeyay la daaladhacayay dhibaatooyin kala duwan oo amni darrada ay ugu horeyso waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka hiiraan cid walba hub ku dhex wadata gudaha magaalada haatan wixii ka dambeeya laga doonayo in guryaha ay ku xareystaan haddii ay ka dhaga adeegaan amarka uu siiyey ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwanna talaabo sharciya laga qaadi doono dadka hubka sida sharci darrada ugu dhex wata gudaha magaalada beledweyne maanta halkan shirkan jaraa'idon ku qabanayna wuxuu ku saabsan yahay xaaladaha ka jira magaalada beledweyne oo maalmahan isku soo tarayay xaalado aysan magaalada weligeed aysan wajihin oo aad u adag sidaan walaalayaal ogsoonnahay maalmahan habeen alla keeno oo beledweyne waxyaabaha ka dhaca oo u jeednaa qof oon dhallinyaro ah oon waxba galabsana oon qolooyin tuuga oo iska yar ku leehaysa dadkii moobeelladii guryahoodii waa kala bixi lahaayeen dhibaatooyin badan oo xaalad adagaha jirto dhammaan ciidamada qalabka sida oo amniga waa isku keennay waan wada fadhiisannay xaaladaasna waa ka tashanay waxaan soo saarnay cid allaale ciddii qori sharci darro ah oo magaalada beledweyne ku wado in la soo qabto cid allaale ciddii diidana markaasi waajibaad laga guto wax allaale wixii ka yimaada ka maamul ahaan ayaan annaga dusha saarannay sababtuna waxay tahay dadka annaga ka mas'uula magaaladii wixii ka jiro iyo xaaladaha ka jirna adika degan iyo dadka dhan way wada ogsoon yihiin wax qarsoon ma leh waxaa magaaladan ka jiro oo dhibaatooyinka ugu waaweyn nagu haya waxaa ka mid ah odayaashii nabadoonnadii haddii qof la dilo ayagaa soo daba ordaa hadda waxaan maraynaa inaan idhaahdo saldhiggii beledweyne qof lagu xiri maa xaafada lagu waardiyno qofkii ay rabaan in qofkii in xaafadii lagu haayo waxay ugu badan tahay waxyaabaha dhibaatada odayaashana waxaan ugu digaynaa in arrintaas ay ka leexdaan ay ka dhacbaxaan ciidamadana amar cad waxay ku qabaan inaysan ka leexleexa karin annagana aan ku amarnay ayagana waajibaadkaasi naga qaateen in maanta wixii ka dambeeya qori sharci darrana aan lagu arki karin magaalada beledweyne qof wadato qoryaha ciidamada kala duwan ay wataan taas waajibaad gaar ay leedahay askarigaasna kulley wuxuu ku waayi doonaa sharciyadiisa ciidan maxkamadna uu ku mari doonaa qori ciidan haddii la arko taas ayagaan ka ballan waajibaadkaas ayagaa iska leh qofkii shacab ah oo magaalada beledweyne qori ku qaata maanta wixii ka dambeeyo waajibaada laga gudana cid laga leexleexana cid laga cabsana ma jirto dadkani dhibaatada lagu korhaya ayaga dhibaatadaas way ogsoon yihiin maanta in loo gargaaray mudahi in la dhibo ma mudno habeen kastana dhallinyarada subaxii on la wadaa la duugama inkii kale la duuga moogi haddana way sii taagan tahay saldhigii haddaan wax ku xidhan odayaashii ordaa ka daba imaana war waxaan idka codsanaynaa odayaal iyo cid walba iyo dhaqan iyo cid kasta ciidan iyo maamul saan isku leyna inaan sagrabsanaa waxyaabaan ugu bixi karnaa maanta wixii ka dambeeya arrintaasi qoray beledweyne ninkii ku dhex wato kulley asiga ciidamada amnigaas kaga dhex baxaynaa wixii ka soo dhex baxaa kadib asiga oon wixii oon meeshaas ka yimaada oo qaladaadana qofkii sharci darro qoray ku qaataa iska leh waana amar naga baxay waana ciidamada amniga waa garab taagannahay waa kula talin talaas way naga qataan waajibaadkooda in gutaana diyaar u yihiin horeyna diyaar ugu ahaayeen odayaashan iyo dadkan joogaa laga shaqaylaa wax qabiil la yidhaah oon hadda fiirfiirinayni waxaasi ma jirto qof kasta meesheeda dhibaato ku haysataa habeen kastana dhallinyaraha ku dhibaatoobaa meeshii intaasan maanta shirkeena jaraa'id ku saabsanaay waana mahadsantihiin qof walbay maanta wixii ka dambeeyo qorigaada tartiib gurigaada u dhigo ninkii wax si fiican shabaab iskaga ilaalinaya xitaa uu qorigaada gurigaada dhigo amniga ciidamada suga magaalada ciidamada lagu sii dayna si tartiib u joog dadku way isku dhex jiraan qoriga nin si fiican u wato oo isku ilaalina dadkiisana ku ilaashana iyo nin wax ku dhibaatayna xataa ka si fiican u wato waa lagu qaldamay tartiib gurigaada u joog maalmahan xaaladda magaalada la xasilina shaqo xooggan laga qabana waxaa kaloo soo haray sida daroogadoo kale waa la soconnaa
inta badan xaafadaha waxyaabaha dadka hadda dilo ama waxyaabaha waxa dhaca mobilada dhaca waxay ugu badan yihiin daroogadii waxyaabaha noocaas goob alla iyo goobtii lagu gado guryaha waa la kala yaqaanaa beledweyne waa la yaqaanaa dadka meelahay tagaan waa la yaqaanaa ayagana waa lagu tagaa waa corruptionka ugu weyn oo haysto waxa dhacana ayada sabab u ah taasna ciidamadu go'aan ay ka qaateen annaga maamul ahaanna waa ku taageerna waan ku garab taagana aydan ha laga waantoobaan leenahay dadka dan ugu ma jirto islaamnimada dan ugu ma jirto wax ay dan ugu jirto ma laha bayraatee Samiir Cabdirasaaq Umar wararka muuqaal baahiyaha Shabeelle magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah